waxay ahayd munaasabad kulmisay mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya dowladda federaalka Soomaaliya shacab aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho taa oo lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee Xamar 26 Juun oo ku beegan 62 sanad guuradii ka soo wareegatay xilligii gobolada waqooyi ee dalkeena ay xornimada ka qaateen gumeystigii Ingiriiska ayay daarneed munaasabadda waxaana munaasabada lagu weyneynayo maalinta lagu qabtay guud ahaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa in la helo xorriyadda aan ku naaloonayno ma aha wax si fudud lagu keenay balse waxa u dhintay halgamayaal aad u fara badan kuwa oo hadafkoodu ahaa sidii mar uun isaga qaadi lahaayeen heerihii gumeysiga waxaana xilliga kadib la curiyay sugaan ka turjumaysay xornimadii aanu qaadanay mahalayga saaray dhinacyadaay daara hartan waxyeelaadihi dhaqdhaqe caalanka dhidbaysow maa soo dirayne munaasabada lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre waxayna si wada jir ah hambalyo ugu direen guud ahaan shacabka Soomaaliyeed xuska 26 Juun oo ah goortii gobolada waqooyi ee dalkeena ay xornimada ka qaateen gumeystigii Ingiriiska ugu horeyn waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa munaasabada 26 Juun ee ku beegan 62 guuradii ka soo wareegtay markii gobolada waqooyi xorriyadda ka qaateen gumaysigii Ingiriiska isla markaana ah markii ugu horeysay calan laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor halgankii dheeraa ee la soo maray loo soo maray hanashada xorriyadda aynu ku naaloonayno maanta ma ahayn mid hadiyad lagu helay ama sahal inagu soo galay ee waxay ahayd mid naf iyo maalba loo huray dadaalkaas dheer ee halgankii xornimo doonka waxaa xusuusin mudan in walaalaheenna waqooyi kaalin mug leh ay ku lahaayeen waxayna u hureen dhiigooda libta 26 Juun waxaan rabaa sidaas ay wasaaraha dadka dhawaajinayay dalka waxaa ka jirta abaar aad u daran waxaa ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyiintii dhamaanteen looga baahan yahay inaan ma aragtay gacanna damaashaadkeen aan ku wadano gacanna badbaadada ummadeen aan ku wadano marna ma aragtay la naga dareemin inaan ma aragtay niijab lagu jiro in la dareemin shacabka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in abaarahana looga gargaaro amnina uu helo dawladda cusub maadaama waqti badan ma aragtay dhibaato lagu soo jiray dawladda cusub sida ma aragtay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dhamaantaan qabno shacabka Soomaaliyeed amni iyo gargaar bay u baahan yihiin labadaba insha Allah dadaal xoog leh la gelin doona marka mudanayaal iyo marweyne akhyaarta sharafta badan waxaad ogtihiin waqtigii la gaaray kuma fogaanahayo waxa inoo balan ah midnimo Soomaaliland oo la qaniyo jamhuuriyadda Soomaaliya oo sideeda lagu soo celiyo annagoo gacmaha isqabsana aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsan yahay gudoomiyaha golaha shacabka oo wakiilka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe calan saarkii ayaa la aadayaa fadlan waxaan idinka codsanaynaa
inta ay madaxda halkan ka baxayaan ee calansaarka aadayaan in aanan lagu sii cariirinin booska ka soo qaybgalayaasha dhammaantiin aad ay u mahadsan. tan iyo xalay ilaa maanta waxaa guud ahaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ka soconayo dabaaldegyo weyn oo lagu weyneynayo xuska 26 juun. shacab aad u fara badan ayaa dhanka kale isugu soo baxay goobaha taariikhiga ah sida taalada daljirka dahsoon si ay ugu weyneeyaan maalintaani aadka u qiimaha badan. halkaan u imaaday inaa isheeg dabaaldego maalinta xorriyadda ee Soomaaliya 26 juun. maanta oo kale intee farxadeyda lama soo koobi karo maasha Allah. way dhalinyarada waxa ka mid tahay aan nabadda soo arag ee Soomaaliya 26 juun iyo 1 luuliyana dabaaldegooda ka soo qayb qaatay intaas oo sano. waxa laga yaabaa taalada inaad waqti badan soo gaartay oo sanadaynu soo dhaafnay kamid ah. waxaan ku weydiinayaa 26 juun adigu maxaad ka fahansan? walaahi wax badan ka fahansanahay maasha Allah. waxa ka fahansanahay kale inay tahay maalinta xorriyadda. maasha Allah waxa uu dabaaldegayo waxay tahay taariikhda Soomaaliya. xanaan Ismaaciil Xuseen meesha way maanta inaad dabaaldega kooda luuliyo 26 juun. hay yaa kula socda mar hooyada iyo walaalahay lagu sheegay maanta waxyaabaha halkaan u imaatay iyo waxa ay tahay dabaaldega maanta xornimada Soomaaliya. maxaa rajaynaysaa marka Soomaaliya maxaa u rajaynaysaa? guul aan magacayga waa hodan degmada Howlwadaag baa ka imaaday. maanta maxaa u dabaaldegaysaa 26 juun? maxaa laga wada 26 juun? Soomaaliya markay xorriyadda qaadatay. waxaa u dabaaldegaya calanka Soomaaliya 26 juun. maxaad ka aaminsantahay 26 maanta u dabaaldegaysaa? waxaa maanta ka aaminsanahay yani qarankayga muddo badan loo soo halgamay inaan si nabad aniga aan gacantayda ku haysto. aad baan ugu faraxsanahay. maanta waan dabaaldegaynaa u jeedaa farxadeena maanta jiran maasha Allah alxamdulillah. maxaa u dabaaldegaysaa maanta? waxaan u dabaaldegaynaa oo dareemi kartaa 26 juun u dabaaldegaynaa insha Allah. 26 juun baa u dabaaldegaynaa maanta. waxaan odweyna u dabaaldegaynaa maanta. adaynayna ka soo jeedaa laakiin ka war marka degmadaad ka imaatay taalada daljirka dahsoon ku sugan tahay. wallaahi maanta lama soo koobi karo farxadayada wanaagayga maasha Allah aad baan u faraxsanahay. 26 juun oo ah xilligii gobolada waqooyi ee xornimada ka qaateen gumaystihii Ingiriiska sidoo kalena calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago geyiga Soomaaliyeed ayaa ah maalin qaran waxaana sanad walba maantoo kale dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda isku duuban ay qabtaan munaasabado lagu weyneynayo 26 juun. sidoo kale waxaa fooda nagu soo hayso 1 luuliya oo iyana ah goortii gobolada koonfureed ay xornimada ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo sidoo kale midowga labada gobol.